xaaladeyda ma fiicno dadka qaar live kanta ku jiray arkeen waa aragteen anigoo live ku jiro oo wax iska iibsanayo hal mar waxaan ka warhernay ilmaha albaabkii soo garaacay gambaleel kala soo garaacay waxa uu haysanay inuu ninkeyga uu yahay shaqada ka imaaday and then ilmihii albaabka hoose ay u degteen inay furaan rabaan albaabka uu ka tuuraysanaa gambaleelku ay ka furi waayeen sababtoo ah baryihii dambe dhinaca siyaan qabnay saas albaabkeena hoose xitaa mar walba ka tuuraynayna furaa gelinaynay marka albaabka hal mar la soo garaacay marka hoos u deganay waxa aragnay yaani ilmihii way degteen inay furaanay rabeen alaa xal warkaan igu dheeraysiinina booliis saaib fara badan oo imaadeen albaabkiina way soo jabiyeen mar alla markay albaabka soo jabiyeen hoos waxa joogeen xitaa taliyar yaanu kaleeto taliyar xitaa lugta dhalaa ka gashay albaabka ayuu inta furaha ilmaha ka keenayeen way sugu waayeen waa la furayaa suga ilmihii oo dhan way argagaxeen anna mar alla markaa soo degto albaabkii oo la furo dhaay maxaa la furaabo albaabku way soo galeen albaabka hoose asidan way soo jajabiyeen and then anigana waxay sidii tuug oo kaleeto ama qof dambiila camal sidaan ay xirxire gacmihayga oo dhan darbiga igu la riixeen waxay igu xirxireen baasha waxba ma fahansaneen wax la xirayo wax kaleeto hal live ku jiray teleefankana way iga damiyeen inta dadka aragtay in kala ma aqaani teleefanka labada teleefan baa la iga damiyay darbiga igu la qabteen gacmaha bari ay igu xireen gacanteedana hadda arkay santan kaleetana saas le waaye and then waxa u malayaa inaan qof aad dishay dhahooyaan markii dambe waxaan arkay inay dhahayaan waa isdili rabtaa waxaan ku dhahay anise isku dilaya maalintii live ku jira teleefankayga waa u jeedaan live ku jira see isku dilaya waa isdili rabtaa then English ay ugu hadlayaan waxa la yaabin aan aad iyo aad ugu la yaabo waxay tahay email qof u soo diray wuxuu dhahay waa isdili rabaa aniga magacayga camal u isticmaalay ani ilmahayga waa isdili rabnaa naga soo gaara waxay leeyihiin qofka emailka soo diray qof oo af Jarmal si fiican u yaqaan u ahaa yaani qof Jarmal u ahaa haddii marka emailka qof soo diray qof Jarmal u ahaa sidee ani gacmaha iga ka xirxireen oo ay u jeedaan in aan qof ajnabi aan ahay oo Jarmalkayga sidoo Jarmalka dadka ahna marnaba una ahayn saasay gacmaha iga xirxireen saacado dhan waa xirxirnaa guriga meel walba albaabada oo dhan way jibiyeen qayb hoos aniga shaqo ku leeyahay xitaa way jibiyeen guriga alaabka laha meel walba ay soo jibiyeen anigana saacad ku dhawaad gacmaha saan ugu xirnaa waxaan ku dhaawar iga fura gacmaha way xanuunayaan qof maqli ma laha marka su'aashu waxa waaye qofka dulmi ma booliisaya mise qofka emailka soo diray albaabkeena oo dhan saas u jajaban yahay yaani guri banaan ayna jiifno kale waxba ma dhaanto hadii guriga iska laheeda imaaday waa la isku dayaa in la sameeyo laakiin albaabku waxa deer dhalu ahaa isaga waa la jibiyay alwaaxiis macna dhaladiisa marka aad u mahadsantiin inta soo wada sheekada saas waaye waa dad ina noolaada dhan badiidan oo dadka Jarmalka oo cunsuriyiinta ah waaye soo bariye jambo dhan waxa saasoo kale emailo aniga naftirkii aan la kulmay way jirtay aan marka waa iska ignore garay sababtoo ah kori Hispanic cunsuriyiin meel walba mi deynayaan so taas wala socda insha Allah wixii Ilaahay kugu rido ka badan ma kugu dhacayaan khayr badan ay rajaynaa dadkii soo wacay oo dhan run ahaantii waa muuqaal argagixiisa wato waa hooyo Soomaaliyeed oo dad taqaanin Xaliimo oo karti badan Xaliimo Cadow maalin walba ma sha Allah live soo gasho shaqaysato caagadaas ka dambeeyay dhan ay live ka ku gadaa oo geedaha cuntooyinka ilmaha loogu rita ah asaan jeclaa lunch bag ah sidoo kale waxay soo bandhigi jirtay ma sha Allah ilmo badan ay haystaa aan u maleynaa wali qaarna iyada dhasha qaarna ayna dhalin oo soo qurux badan ee u koriso same ee wada jecesha ma sha Allah ay hadda ka horxatay naga codsatay kelimadaas inaanan dhihin ilmaha qaar ayada dhasha amba maysan dhalan la dhaho run ahaantii waa hooyo aad iyo aad u karti badan Soomaaliyeed ha loo kaco especially Soomaalida Jarmalka joogta gabadhaas ha loo kaco booliiskana si sharci uu ku yimid sida ay hadda noo sheegtay laakiin saas ay tahay xatee iyadoo dhees albaabka waa la furayaa inay soo jabiyaan maysan ahayn ayada naftirkooda waxay ku andaco karaan wax kaleeto laakiin waxaan ku leeyahay ayagana dacway dadkii oo ku soo dulmiyeen
waa inaad dacweysaa haka daba harin xaqaaga soo dhacsaa baayo ma fahantay dee booliisku waa bili aadan sida anagoo kale taa qaladna way geli karaan ilaahay ha ku xifdiyaadii caruurtaada asxaabtu waa idin salaam